Muhiim weeye barashada Quraanka waana fursad u baahan ka faa'iidaysi waqtigan taagan iyo dugsiga sida online-ka Quraanka looga barto ee Cabdullaahi ibnu Cabbaas Quraan Online. Dadka jooga qurbaha iyo kuwa jooga gudaha dalkeena magaalooyinka kala duwan da' kasta way yihiin dadka waaweyn iyo carruurta. Waxaa dugsiga Cabdullaahi ibnu Cabbaas Quraan Online u diyaariyay qaab fudud iyagoo guryahooda jooga loo barayo Quraanka Kariimka. Cabdullaahi ibnu Cabbaas Quraan Online waxyaabaha uu bixinayo waxaa ka mid ah xifdinta Quraanka Kariimka, tajwiidka, hingaada iyo culuumta Quraanka. Bulshooy casrigan la joogo waxaa laga gudbay in laga fikiro sida carruurta lagu geyn karo dugsi guriga ka fog oo laga walwalayo soo laabashada ubadka iyo in ay si sax ah ay wax u bartaan. Waxaana si sahlan ku helaysaa in adigoo gurigaaga jooga saacado kooban ubadkaaga lagugu bari karo casharada maalinlaha ee Quraanka, iyadoo dugsiga Cabdullaahi ibnu Cabbaas uu kaalmaha hore kaga jiro madrasooyinka online-ka. Waxaana xaadir ah waqti walba macallimiin u diyaarsan soo saarista ubadka iyo waalidiin xifdisan Quraanka Kariimka ah. Haddaba dadka xiiseynaya fursadan qaaliga ah ee nolosheena adduunyo iyo tan aakhirana anfacaya waxa ay Cabdullaahi ibnu Cabbaas Quraan Online kala xiriiri karaan nambarada shaashada kaga muuqda ama ku dhufo linkiga WhatsApp-ka ee hadda aynu soo raacnay qaybta comments-ka.